eedeymaha maxkamadda sare ee dalka loo jeediyo kuna aadan isqabqabsiga dhulalka ee maxkamadda ay kala xukmiso ayaa dadka qaar waxay ku andacoodaan inay yihiin kuwo been ah maadaama dukumentiyo been ay jiraan oo lagu sameeyo suuqyada muqdisho qaarkood oo maxkamadda lala tago kuwaasoo ay aqbasho. haddaba guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Caydiid Ilka Xanaf oo isagu ka qaybgalaya barnaamij BBC-da ka baxayay ayaa arrintaasi wax laga weydiiyey waxaana uu sheegay inay jiraan dukumentiyadaas beenta ah in la sameeyo oo muqdisho iyo waddamo kale oo caalamka ku yaala lagu sameeyo ayna jiraan dad ama shirkado gaar ah oo lacaga ku qaato. waxa uu tibaaxay in arrintaasi xal loo la'yahay. weli waa ka dhalantaa Cabdalla Shideeye ninka uu sheegay Cabdalla Shideeye uu leeyahay aan ciidanka weydin la joogay maxaa wax uga qaban weydeen waa runta meelo badan xataa imika waanu ognahay way firdheen markii hore waxay ku sameyn jireen oo kaliya bakaara imika meelo badan bay ku sameeyaan weli arrintaas looma jeesan oo dawladda oo dhammi inay u jeesato weeye because waa problem xataa aniga saxiixayga durba way sameeyeen ka madaxweynaha waa sameeyeen ka ra'iisul wasaaraha durba way sameeyeen marka waxa weeye inay dawladdu u soo jeesato waa sax weeyaadan wax badan meelo badan kuwii oo kale cali muuse cabdi sheegay wallaahi iyagii oo kale laga garanay ayay samaynayaan ay kuu soo sheegayaan. hadalka guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa yimid xilli bilihii u dambeeyey ay soo badatay isqabqabsiga dhulalka iyadoo sida guddoomiyaha uu sheegayo arrintaasi ay sabab u tahay shirkado gaara oo haysta saxiixyada madaxda sare ee dalka iyo sidoo kale dowladihii dalka soo mari jiray ee dhulalka kala bixin jiray sharciyada gaarkana ku bixin jiray.